wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo amray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage in ciidanka militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si degdeg ah lagu geeyo gobolka Gedo iyo balad xaawo hadda is diyaarinaysa inay qaabisho kumanaan ciidan ah oo laga qaadayo caawa magaalada Muqdisho xaaladda Kenya iyo Soomaaliya oo qarka u saaran in labada dal uu ka qarxa dagaal xilli dowladda Kenya isku dayayso inay shitaal ka qodo gobolka Lamu oo ah biyaha Soomaaliya ee u xukuntay maxkamadda ICJ halkee ayuu marayaa dagaalkii ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo cirka isku shareeray iyadoo la ogaaday ra'iisul wasaare Roble inuu ka goosaysto dowladda Kenya xilli khilaaf adag uu ka dhex jiray labada dal ra'iisul wasaare Roble oo wali qorsheynayo inuu magaalada Muqdisho bari ka sameeyo khalalaas iyadoo magaalada Muqdisho xaaladeedu ay tahay mid aad u kacsan wararkeena ayaan idinku faahfaahin doonaa waa sidee xaaladda goobtii maanta qaraxu ka dhacay ururka Al-Shabaab oo ka hadlay iyadana warbixin ayaan idinkaga haynaa isimada Puntland oo si xun u dhawarjibiyay Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Muqdisho xilli ay soo saareen amar isaga ka dhan ah oo ay ku taageereen BSF iyadoo in muddo ah laga sugayay isimada iyo siyaasiyiin reer Puntland ah inay xal ka keenaan khilaaf ka dhaxeeya maamulka Puntland iyo taliyaha ciidanka BSF dhanka kale waa sidee xaaladda Itoobiya oo aad u cakiran maalmahan iyo dagaal laga yaabo inuu mar kale ka qarxa gudaha dalka Itoobiya iyadoo asbuuciyada la soo dhaafay ay ahayd mid xasiloon xilli Abiy uu kala baxay ciidamadiisa gobolka Tigray sidoo kalena maamulkii hore ee Tigray haddana noqday koox falaaga oo la dagaashay dowladana ay ku laabatay fariisimahoodii hore xaaladda Itoobiya ma laga yaabaa in mar kale ay ku laabato dagaal mase Tigray ayaa doonaysa inay ka godo Itoobiya wararkeena ayaan si fiican uga qaada dhigi doonaa qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena habeenimo ku daawan doontaan daawadayaal fadlan daawadaad ay tahay markii koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo fura gambalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid wararka aan ka helino magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu amar ku bixiyay in taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage uu si degdeg ah gobolka Gedo ku geeyay ciidan Gedo ayaa xuduud la leh Kenya iyadoo xaaladda labada dal ay aad u kacsan tahay iyadoo dhinaca kale la sheegayo in dowladda Kenya ciidamadeedu soo diyaarsadeen hub iyo gawaari iyo baabuur aad u culus oo ay doonayaan inay dagaal ku soo qaadaan dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne Farmaajo iyo ciidankiisa ayaa u diyaar garoobaya difaaca qaranka xilli ciidamada hadda tababar laga keenay la sheegayo in ilaa ay maanta lagu daabulayay gobolka Gedo haramcad gorgor iyo dhammaan ciidamada qaranka kuwooda ugu awoodda badnaa ayaa lagu daabulayaa gobolka Gedo gaar ahaan xuduudka la wadaagaan Soomaaliya haddaba Kenya iyo Itoobiya ayaa qarka u saaran inuu dagaal ka qarxo kadib markii dowladda Kenya la ogaaday inay sahmin shidaal ka wado gobolka Lamu oo biyaha baddaasi loo xukumay Soomaaliya maxkamadda ICJ ayaa dhowr bil ka hor u xukuntay Soomaaliya iyadoo dowladda Kenya ay ku gacan saartay hadalka maxkamadda iyagoo sheegay in maxkamaddu u xaqlinayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ciidankiisa ayaa u diyaar garoobaya dagaalkii ugu horeeyay oo ay la galaan dal shisheeyo iyagoo difaacaya biyaha dalka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo waxa hubaal ah inuu taariikh ka qori doono gudaha dalka haddii ay dhacdo in Soomaaliya ay uga adkaato quwad ciidamada dalka Kenya oo haysta sida loobo diyaarado dhanka kalena uu adag ciidamada federaalka ee Soomaaliya dhanka badda balse madaxweyne Farmaajo oo isticmaalaya ciidamada lugta iyo kuwa militariga ayaa la rajeynayaa in dhawaan ay wacdaro ka dhigi doonaan xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa barashar ku saaraya madaxweyne Farmaajo inuu ka joogo dagaalka uu ku qaadayo Kenya xilli dalka uu baahan yahay midow in laga difaaco cadawga Roble ayaa lagu wadaa inuu bari ka kiciyo magaalada Muqdisho qalalaase xilli shacabka Soomaaliyeed ay codsanayaan in la joojiyo barnaamijka laga wado magaalada Muqdisho mucaaradka Roble iyo maamul goboleedyada qaar ayaa wada inay bari ka sameeyaan magaalada Muqdisho mudaharaad ay uga soo horjeedaan xilka joojintii 27 December ee sanadkii tagay lagu sameeyay ra'iisul wasaare Roble haddaba hadalka mucaaradka Roble iyo maamul goboleedyada qaar sida Axmed Madoobe iyo Dani ayaa laga dhadhansan karaa inay taageerayaan garabna siinayaan dowladda Kenya oo dagaal cad ku soo qaaday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo hadda la isku haysto xuduudda iyo biyihii Soomaaliya oo ay doonayaan inay shidaal ka sameystaan dhanka kalena wararka aan ka helayno magaalada Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa la sheegayaa in ciidamadii halka ay loo geeyay inay la dagaalamaan ahlu sunno
dib loogu soo celiyay magaalada muqdisho iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya ay doonayso in isla caawa la geeyo gobolka Gedo si ay u difaacaan dalka maadaama dalku uu galayo xaalad dagaal oo ka dhan ah Kenya oo doonaysa inay xoog ku qaadato biyaha Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa aaminsan in wali Soomaaliya aysan ciidan tayo leh oo u babac dhigi kara ciidamadooda maadaama ay hadda sameynayaan sahmo shidaal sidoo kalena ay doonayaan in shirkado caalami ah ay gudaha dalka Kenya imaadaan si ay shidaalkaasi u baaraan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay shirkadahaasi u dirtay warqad digniin ah iyadoo uga digtay inay faragelin ku sameeyaan gudaha dalka Soomaaliya sidoo kalena ay baaris ka sameeyaan shidaalka dalka iyagoo aan amar uga haysan dowladda federaalka ee Soomaaliya. kaliya waxay ku baari karaan codsi Soomaaliya iyaga ay ka codsatay sidaan shidaal ugu soo saari karaan balse Soomaaliya xilligan la joogo diyaar uma ahan ayay dhaheen in shidaal laga qodo dhulkeeda maadaama wali system ahaan aysan istaagin. dhinaca kalena ismada maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray kulan maalmahanba looga fadhiyay sida loo xalin lahaa khilaafka ka dhaxeeya agaasimaha hay'adda BSF iyo maamulka Puntland oo iswada wata. ismada Puntland ayaa si toos ah uga soo horjeestay amarkii Saciid Dani iyagoona sheegay inuu sii ahaan doono taliyahii hore ee uu Dani ka qaaday xilka sidoo kalena Dani uu keeno xal kale oo arrinta lagu xalin karo. sidoo kale waxay sheegeen dakhliga ka soo gala magaalada Boosaaso in 17% lagu soo celiyo gudaha magaalada. haddaba qodobada oo dhowr ka koobnaa ayaa inta waxa u muuqatay inay koor imaanayeen Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho si uu rabshado uga geysto. Saciid Dani ayaa lagu wadaa inuu caawa gaaro magaalada Boosaaso. Saciid Dani ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto deegaanada Puntland oo intuu ka maqnaa ay ka dhaceen dhacdooyin siyaasadeed oo isaga saameyn xooggan ku reebay. Saciid Dani sida wararku sheegayaan waa musharax doonaya inuu soo saarto xildhibaano waana sababta keentay inuu dagaal ka bilaabo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. dhinaca kalena dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay in mar kale uu ka qarxo dagaal u dhaxeeya kooxda fallaagada ah ee Tigray iyo maamulka uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy. asbuucyo ka hor ayaa lagu dhawaaqay xabad joojin ka imaatay dhanka Tigray iyagoo sheegay inay ka bixi doonaan deegaanada ay ka haystaan Canfarta iyo Amxaarada sidoo kalena loo baneeyo deegaanadooda. Tigray ayaa la sheegayaa inay hadda qorsheynayso inay noqoto dowlad madax bannaan balse Abiy oo arrinta diidan ayaa doonaya inuu dagaal ku bilaabo maadaama uu kululeeyay marka hore Tigray waana sababta keentay ayaa leeyahay inay isu dhiibaan oo ay dagaalka u baajiyaan. Tigray oo markale qorshoodu ahaa inay marka hore qabsadaan guud ahaan dowladda Itoobiya oo sidii hore ay u gumeystaan ayaa hadda rajadiga waxayna doonayaan in sida Eritrea oo kale ay uga baxaan dowladda federaalka ee Itoobiya. qorshaha Tigray ayuu doonayaa inuu dhabar jabiyo Abiy Ahmed waxaana Tigray taageeraya dowladda ay ka mid tahay Mareykanka halka dowladda federaalka ay taageerayaan Ruushka, Turkiga iyo Chinaha oo cadow adag ku ah dowladda Mareykanka. haddaba haddii ay dhacdo in dowladda Itoobiya ay ka goosato Tigray waxaa laga yaabaa in Itoobiya oo dhan ay noqoto